أنا قاضي مع قويسك أبهد أذهب يا أبكر يا أبتياشد يا أمور لنا مشى سكوت gabadha haybado Ismaaciil Cumar Geelle waa midisay burburkii kadib arintii ugu yaabka iyo hadalhaynta badnayd oo ka dhacday dalka Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland oo in badan shakhsiyaad caan ah oo Soomaaliya soo tarxiilay oo gacanta isgaliyay iyaga oo faraxsan مسؤولين كترسان دولة فدرال كصوماليا وقاركود موسى بيحي حرقوف دحمرتي او إساركي صوماليا إيا جبوتي وحيديد إيا أريمان لياب له او لغو أركي نكاح جنرال صادق جون إيا قبضا مدحوينها جبوتي إسماعيل عمر جيلي وربحين حساسية إيا موقالكي قدام بيي او براها بلشاد هايستا أيان صاحب بيالكو ايقي دونا وربحين تينان موقالك اللاي قري او لوداك صاحب بدادا كما سنة داودي kulanti habboon saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena ducaysana media oo ana alaaba saaxiibayaal idinkugu soo gudbino warbixinada markaasi taagan isla mar ahaantaana baraha bulshada hadalhaynta kale waxaa dalka Jabuuti ka dhacay nikaax dhexmaray General Saadaq John oo kamid ah generaalada ugu caansan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haatan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo gabadha madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ee lagu magacaabo haybado Ismaaciil Cumar Geelle iyadoona sidoo kale nikaaxaasi ay isku arkeen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyaga oo gacanta isgaliyay waliba iyaga oo qoslaya sidoo kale madasha waxa isku arkay madaxda ugu sarsaraysa dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood iyo Muuse Biixi oo ay xurguf ka dhaxaysay mararka qaarkood waxa la arkayay oo sawirada qaarkood ay soo qabanayeen Muuse Biixi oo u janjeera dhanka dhinaca Ismaaciil Cumar Geelle isagoo ka sikanaya qaarkood madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira sida muuqaalka kaaga muuqanaya أنا قاضي مع قويسك أبهد أذهب يا أبكر يا أبتياشد يا أمور لنا مشى سكوت gabadha haybado Ismaaciil Cumar Geelle waa midisay muuqaalka la garay ku mahadsanid daawade tan iyo kulanti dambe nabaadiino ku soo biir baraheena bulshada ducaysana media